magacayga waa cabdiraxmaan cabdulaahi suldaan bede maanta bisha tahay March 7th 2021 waxaan la joogaa Dr. Cilmi oo maanta waxaan chance u helay in waxoogaa uu iga sheekeeyo buuggiisa uu soo qoray oo ku saabsan waxaa loo yaqaano Cilmi's Medical Encyclopedia. haddaba waxaan idiin sheego aniga professionkayga maadaama luqadda jeclahay waa markii ugu horreysay buugga akhriyay. markaan buugga akhriyay waxay ugu horreysay iga yaabay wuxuu ahaa weligii ma arkin shakhsi Soomaali oo aqoon-yahan ah oo ka sheekeynaya cilmiga loo yaqaano lexicography. Lexicography wax kale ma aha, waa the art of compiling words into dictionary. marka waxa iga yaabiyey not only Cilmi effort uu geliyay buugga sida uu u qeexaya kelmadaha sida baahsan ee qotada dheer leh ee richka ah. marka insha Allah waxaan jeclaa mustaqbalka inaan buugga dhammaystiro, laakiin maanta ma buugga arkay. marka mustaqbalka I will finish reading that book hadii la ka dhigo. waxaan aad ugu mahadnaqayaa Cilmi inuu ummadda ku soo kordhiyey yani such highly muxuu ahaa crafted dictionary oo medical ah. inta badan waxaan arki jirnay medical dictionary oo si yaroo sahlan u qor ama subject khaasa ku eg, laakiin kanuu Cilmi qoray waa such a broad muxuu ahaa medical dictionary. Dr. Cilmi Salbi weydiiyey ani backgroundkayga waxaan haystaa oo English oo degree in English literature and specifically waxaan aad u jeclahay muxuu ahaa fiction area. marka language-kana waan jeclahay, markay noqoto linguistics-ka ama science-ka luqadana aniga isbaray. marka qofka hadduu mar literature barto linguistics-kana waa qasab inuu fahmo, waayo cilmigii science-ka luqadda science-ka iyo luqadda sugaantu they are intertwined, waa wax isku xidhan. marka haddaadan kan garanin waana labada baratay. marka by the way I'm so happy inaan buugga arko shakhsi Soomaaliyeed uu qoray specifically Dr. Cilmi oo ma garanaysaa wallahi aad iyo aad waa rich in vocabulary, waa rich in muxuu ahaa imika for example halka kalmada dictionary-ga ku qoran waxaa loo yaqaanaa muxuu ahaa lexeme. marka lexeme-kaas markuu sii faahfaahinayo weli dictionary-yaasha kale Soomaalida kuma arkin qof sax u sii faahfaahinaya, laakiin waa kii ugu horreeya ku arko in hal lexeme ama qurubka kelmadda hoose uu Cilmi sharaxay. insha Allah next time kana waan ku dari doonaa wixii kale buugga aan ku aragnay. wabillahi tawfiiq.